السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali waxa burburiyay waa qabyaalada waa cadaalad darro waa dulmi waa khilaaf waa ficil ibliis waa waxun ummadda awoodeeda iyo sharafkeeda iyo xorriyadeeda dhaawacaya oo kala qaybinaya cadaalad haddii la waayo nabad iyo horumar iyo sharaf iyo deganaansho iyo midnimo iyo naxariis alle ma jiri karo qofkii cadaalad darro lagu sameeyaa waa qasab inuu kula dagaalamo ما كعرر نسكسو إلا إلهي مصيب وكانوا الموضياشة مارك أمدا إسنع ولا بجروب أو كلا جبتنا وحاولت لي عدو هذا سي أوتوماتيك ماشي يكون وشان وحي نقطع فرن دجال ولي جدنا قرات يو قح يو أبار عبسي ضد يو نعيب يو عيد يو دبودع يو جهل كما بحر ومد نوع عسان إلهي ومن حريص dalka Soomaaliya waxa ku nool dad wax xuquuq aan ku lahayn oo lagu cunsuriyay sida Allah uu abuuray iyo aqoonta uu siiyay iyo wanaagooda dadkaas waxa lagu cunsuriyaa waa tima adag beeraha iyo dhismaha guryaha ay ku fiican in laga guursado waa fuundiyaal ma hubaysna dadka ma dilaan waa dad nabadeed dadkana lama sinna madaxna ma noqon karaan kuwa kale waxa lagu cunsuriyaa waa timi jilac farsamada birta iyo kabaha ay ku fiican yihiin laga guursado waa tumaal waa injineero ma hubaysna dadka ma dilaan waa dad nabadeed dadkana lama sinna madaxna ma noqon karaan يا يري توقة تولك محور ميسن يهي وحان كحن والله عنا قعمو قيل جيرو هوس ايا الله دقا كبتاضي يطولك هذا دحدا ايا الله وجرا توقة تولك مر ميسنا لا تأكلوا أموال الناس لا يسهر قوم من قوم لا تظلمون ولا تظلمون إلهي سبحانه وتعالى شغل شدجية ما أقول من آمسنا محاول حياة الجلع يوتم أبد تمال وإنجنير كسمي ديار ضحى مراكيبتا بابورتا كمبيوتر رضا تلفون رضا ممكن نوكلير كعالم كفان برتا أو سمايو إلهي أيا قرآنكم كشيغي سورة برتا تكنولوجيا الله شيغنا وابرتا محاي كوكل دويهين مالك أمريكانكا يو كان سوماليكا يو كان شينيسيكا وظلم الدقنماء وأقوانتا يو هرمركا يو مدنمدا يو حقوق بني آدمك يو دينتي إلهي كسو هرجيدا الله دقال سيدويا هدرانك دادكان دالكودو كدحدو من بقلال كسان sidaan ogsoonahay haddii aanu nahay Soomaali umuuman heerka aan ku soo jeednay ee gabooyo isku ila Soomaali xidid iyo xigaal midna lama aha si Soomaalida kale isku la dhalaan oo laga yaabo hawiyaha iyo isaaqoon xididaan dhul bahantaha iyo isaaq waa xididaan ogaadeen iyo majeerteen waa ka daali Soomaali isku wada ilaaq meel kasta ay joogto xidid iyo xigaalnimo ka dhaxaysa laakiin heerka anagu aan ka soo jeednay gabooyo la yiraahdo Soomaalida isku wada idlaaqo anaga xigaalna nagama dhaxeeyo xidnimo nagama dhaxayso taasina runtii wax qarsoon ma aha oo waa wax boqolaal sano soo jira weey nimayo dadku waa saddex waxaan doonayaa arintan xanuunka ay leedahay is'al jarrib wala tas'al dabib arintan xanuunka ay leedahay baan rabaa maanta inaan wax yar idinka idhaahdo anigoo Suuriya jooga oo meel shirkada ka shaqeeya cadceeduna ay aad u kulushahay oo niman Suuriyaan la shaqeeyna ay Soomaalidii meesha igala shaqeynay waxa u tagay nimankii Carabtaha waxay ku yiraahdeen Maxamed Nuur Mooga aniga leeyahay Maxamed Mooga marka magacayga la soo gaabiyo Maxamed Mooga waa khadaan bay ku yiraahdeen nimankii ku yiraahdeen Maxamed Mooga midkaan yaa ku taageeray holka waxaana doonaynaa in Ilaahay noo naxariisto oo dhibaatada naga dulqaado oo barwaaqo ka dhigo dhulkeena culimada Soomaaliyeed masaajidada Soomaaliya ugu duceeyaan waxba laga ma aqbalo soonka ayaa taraawixda Soomaaliya loogu duceeyaa waxba laga ma aqbalo xujayda ayaa Soomaaliya xaj ugu soo duceeysa waxba laga ma aqbalo badalkeeda Ilaahay ciqaabta ayuu u sii badanayaa Soomaaliya oo colaada iyo abaaraha iyo qaxa xabsida
sii rajo xumada iyo ciilka ceebaha way sii kordhayaan marba marka ka dambaysa dalka dadka jooga waa wada tahriib kii hanta haystay waa tahriib kii faqri ahaa waa tahriib kii meel nabad ah ku noolaa waa tahriib kii madax ahaa waa tahriib yaa heerkaas na geersay tuuga tolka yaa ku taageeray tolka tuuga tolka yuu u shaqeeyaa cadowga Soomaaliyeed iyo calooshiisa caawi caruurtiisina dibidaha yaa waay dhalinyaradan hubka la isugu dhiibay ee isdilaysa waa dhalinyaradii tolka markuu dhaawacmana waxaa lagu aqooriyaa waalidkiisa oo faqri ah oo kaniin xitaa aan u iibin karin hadduu dhintana halkuu ku dhinta ayaa loogu soo dhaqaajinaya oo dugaagta ay ku cunayaan yaa waay waxa xabashida ay dilayso waa tolka yaa waay waxa kenyaatiga u dilaayo waa tolka yaa waay hooyadaana ooyeysa waa tolka yaa waay waxa qaxaaya waa tolka yaa waay waxa badda ku dhimanaya waa tolka yaa waay waxa South Africa ku dhimanaya waa tolka yaa waay waxa saxaraha ku dhimanaya waa tolka maxay raadinayaan meel ay ka jirto nabad iyo nolol iyo cadaalad yaa diida cadaalad iyo sinaanta tuuga tolka qabiil xun ma jira waxaa jira shakhsi xun qabiil kasta waxaa ku jira nin xun oo tuug ah qaacin ah danaysta ah khayr mas'uul ah xabsi ku jira lahaa ama la toogan lahaa haddii dawladda siyaad bare ay jira lahayd ama lug iyo gacan laga goyn lahaa haddii ay dawladda islaamiga ay jira lahayd qofkaas xun haddii uu madax noqdana dalka iyo diinta iyo dadka waa iibsanaya oo waxa uu dhaafisanaya maal iyo magac qabiilka uu sheeganayana shaarka ayuu la wataa wax uu qabanayo ma jirto cadowga koowaad oo iska ilaalinayana waa qabiilkiisa waa uu og yahay inay jireen cid la xisaabtamaysa iyo sharci qabanaya toona cadowgana kaas ayuu jecel yahay oo danahooda u fulin karaa oo shacabka Soomaaliyeed u afduubi karaa yaa siinaya beerahan duna xuquuqda ay dalku ku leeyihiin walaalayaal salaanta islaamka ayaan idinku salaamaya marka hore dadka aan garanayna anigu qoliyahan laga hadlay laftoodan ka dhashay cid gaarana ka caban mayno Soomaali oo dhan baan ku cabanayna inta af Soomaaliya ku hadashay iyo meel kasta degan marka hore waxaan salaan u diray kuwii dalkii joogay iyo kuwa gudaha joogaba dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan salaamayaa ilaahay baa mahad iska leh naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh ee naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh barnaamijkan aad u bixiseen walaalayaal xaalmarinta walaalaha xumeeyay anigu waxaan oran lahaa xalkii baan ku jirnay xaalku haynoo yar dambeeyo taa macnaheedu waxa weeye cid kasta oo arrinta wax ka qabanaysa ama ka hadlaysa waan soo dhaweynaynaa laakiin wax kasta inay cad yihiin sida leerka ayaa muhiim ah su'aashu waxay tahay xaal anigu diidi mayno laakiin xaalkiyaanu ka qaadanayna siinaya ma shakhsi baana siinaya ma dawlad baana siinaysa ma dad gaarana siinaya ma gobol baana siinaya ma madaxweynaana siinaya waxaan doonaynaa cidda xaalkana siinayno aanu ka qaadanayno inaanu ogaano ماما إنجليزا أيها وحي لضحي باد بيجن ماكس بادن وحي سحنكم بالله وحي سميان وحي سحنكم دمان إلى كون سقال بقول إيو اللحظكي صومالي وحا دوشا لوغا كيناي دستور أن كتر جمعين داناها الدالكا إيو الدينتا إيو دادك الصوماليات بقولكي بقول مسلمة سين لوغا هبابيو دستور كالسحبة إسلامك أيهم يسليه dalka waxa ka jirta dawlad ku dhisan 4.5 afar qabiil oo buuxda iyo Soomaali weyn oo nusa
hoolkii dib u heshiisiinta ayaa madaxdii kuraasta ay isla dhacday iyadoo international community-ga ay goobjoog ka yihiin markii ay dowladdaas dalka timaadayna xasuuqii Soomaaliya ka dhaca qof kasta waa uu ogyahay waxa maanta isbitaal iskula jira dhaawacii 1977 ee dhulkii Soomaali galbeed ku dhaawacmay iyo kii 2007 ku dhaawacmay caasimadii Soomaaliya ku dhaawacmay ayaa maanta isbitaal iskula jira oo saabjeef دستور حق ما أهين وحى أوها دستور لو حراشنا يديك الشعب الصومالي بقول مسلم سي أي أسوء إيبان وأي قميسي وقراضا هذه لباطن يكون السنة صوص عطسيدان أي واحد كسعلان ويلك يقبل الصومالي هذا أنا دونك جوجن واحد سجاية أوكل قح يعرض يتهريب يقميسي يعيل هذه أن ما أنت شعب الصومالي لو كامل شرعي قول الإسلام شرعي ضلك الروح حكومة وإن الشعب كل سنيهن وقف كستو أجيء وقضى أوسينا هديله بحق نفتي هي مالكي هي شرف وأنا إن أكسر ريا شعبك هي مضحلة هي علماء ميليتريا بوليسكا ولون السمنية سلوا وضع إلى عليه وأي جرتا ولبا محكمة سرع وشرعي هي عدالة إلى علينا wax shariic islaam aan ahayn oo Soomaali xal waara loo keeni kara ma jirto waxaan soo maray 57 sano qof aan shariicada Allah aan ku dhaqin waxa tihiin baarlamaankii Soomaaliyeed baa tihiin madaxweynihii sagaalaad oo dooranaysa soo waa dad tirsanaysan way anagu kaasaan wataa 2004 waxaan ahaa 28 murashax baan kaligay kitaabka ka taagay oo iri liibaanteena adduun iyo mid aakhira waxay ku jirtaa annagoo ilaahay adeecna kitaabkiisa shariicadana aan isku xukunno laana waa muftaaxi cadaaladda waay muftaaxi midnimada weeye muftaaxi waxa weeye kalsoonidii dowladda lagu qaban lahaa weeye muftaaxi irsaaqda ilaahay noo furi lahaa weeye warkaamid ka fiican miyaan aragno qof shariic islaam ku dhashay shariic islaam madiina qoys kasta oo Soomaali ah waxa uu ku dhisan yahay waa shariic islaam